soo dhawaada dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed xaruntaani waa xarun cusub waxay uga duwan tahay xarumihii hore ee Guuleed Real Estate waa xarun iyadoo ay iska leedahay waay haddii xarumihii hore ay ahaayeen xarumo kiraa lagu soo meel gaaray alxamdulillah rabbil caalamiin xaruntan waxay uga duwan tahay waa xarun ay Guuleed Real Estate ay u hayso ummadda Soomaaliyeed waa munaasabad xariga looga jaray xarun cusub oo shirkadda Guuleed Real Estate oo ay leeyihiin ganacsato Soomaaliyeed ay ka iibsatay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Xaruntu waxay ka kooban tahay 10 xafiis oo ay ku shaqeyn doonaan howlwadeennada iyo mas'uuliyiinta shirkadda Guuleed Real Estate. Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga Suleyman Karshe, gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada Ankara Daahir Dhoore, ganacsato Soomaali iyo Turkiga iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadan ayaa halkan ka hadlay. run ahaantii waxaan aad ugu faraxsanahay inaan xarig ka jarno dhismaha cusub ay samaysatay shirkadda dhismaha Guuleed Real Estate. run ahaantii waa shirkad inta dadka Soomaalida ee wadankan ganacsiga ka bilaabay faa'iistay successful noqotay marka insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inay ku dadaan Soomaalida kale insha Allah taala waxaan baleenayaa marka wadaha baleenayaa marka labaad waxaan rajaynayaa inay noqoto shirkad hagaajisa xidhiidhka labada dawladood ee dadka walaalaha Turkiga iyo Soomaaliya maadaama ay dadka Soomaalidu aynu ognahay inay aad guriyaha uga iibsanayaan dalka Turkiga waxaan rajaynayaa in iyaguna xil iska saaraan oo ay fududeeyaan dadka Soomaalida xidhiidhkoodana hagaajin insha Allah taala waxaa sharaf ah inaan horta ka soo qayb galo xarig jarkan aan ku xarig jareyno oo aan uga baranay markastaba inay soo kordhiyaan wax cusub oo loo hanqaltaagi karo shirkadda Guuleed Real Estate uu madax ugu horeeyo walaalkeen Farxaan Dhoore waxaan leenahay hambalyo waxaan leenahay Ilaahay ha ka dhigo shirkaddii lagu guuleysto ee barakowda Ilaahay uga dhigo oo ay ku noqdaan maalinba waxaan arkaynaa inay meel sare gaarayaan marka taa waxay noqotay sharaf uma aha Guuleed Real Estate oo kaliya ee waxay mathalayaan magaca Soomaaliyeed ee wadanka Turkiga marka taa sharaf bayno tahay inaan aragno markastaba ganacsi sii kordhaya markaan aragno sharaftu kaligii ma qaadanaya anaga dhan sharaf inoo tahay marka taa waan uga mahad celinaynaa ka rug ganacsi ahaan waxaan leenahay Ilaahay ha u barakeeyo albaabka la furin Allah khayr uga soo wada geliyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün Guuleed şirketimizin ofisinin açılmasında sizlerle bir araya gelmekten onur duyduk. Guuleed şirketimizi yıllardır beraberiz. Arkadaşlarımla Ferdi Akbaş, Mustafa Çokan, Çokgün İnşaat, Guuleed'in kurulduğundan beri her zaman için yanındayız. Guuleed'in başarısı için elimizden ne gerekiyorsa yapmaktayız. Guuleed bizim kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz. Guuleed'le beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz. Guuleed'in başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Bu güzel mutlu gününde beraber bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Guuleed'le beraberiz. Allah hayırlı eylesin. waxaan leenahay hambalyo anagoo maaragtay runtii waxaan ka mid ahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho aadan ugu faraxsanahay waxaan dareensanahay xiriirka ay sameeyeen maxaa la yiraahdaa dawladda dalkana walaalaha Turkiga ganacsigu xiriirka uu sameeyaan ka warhaynaa waxaan rajaynayaa marka Guuleed Real Estate inuu sii xoojiyo oo arintii hore u sii qaado xiriirka ganacsi marka koowaad waxaan aad iyo aad halkan ugu hambalyeeynaa haddaan nahay mas'uuliyiinta jaaliyadda Turkiga horumarka u soo hoyday bulshada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga waxaan ku faraxsanahay Guuleed Real Estate sida quruxda badan ay u faafayso ayadoon hore u ogeyn awooday lahayd iyo laamaha ay ku lahayd wadankan iyo horumarka ay soo kordhisay Farxaan Dhoore iyo Cabdifataax iyo dhammaan si guud ahaan shirkadda Guuleed Real Estate aad iyo aad baan ugu hambalyeeynaa waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo aad iyo aad u mahadsantihiin oo mahad celinaynaa kambaniga weyn Guuleed Real Estate horumarka la taaba kar uu ku tilaabsaday wanaagna waxa ugu filan dadka deegaanka inta badan isaga guriyaha ka gaday marka inta ducaynaysa aad duca ugu filan ugu dambeyntii gudoomiyaha shirkadda Guuleed Real Estate Farxaan Dhoore
ayaa ka hadlay munaasabadda xadhigga looga jaray xaruntan cusub ee ay iibsadeen, wuxuuna sidoo kale casho sharaf u sameeyey mas-uuliyiintii kasoo qayb galay. soo dhowaada dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed. xaruntaani waa xarun cusub, waxay uga duwan tahay xarumihii hore ee Guuleed Real Estate. waa xarun iyadoo ay iska leedahay waay. haddii xarumihii hore ay ahaayeen xarumo kiraa lagu soo meel gaaray, alxamdulilah rabbil caalamiin, xaruntan waxay uga duwan tahay waa xarun ay Guuleed Real Estate ay u hayso ummadda Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan aad ugu mahad celiyo rag badan iyo oo hadda qaar ka midii joogaan nala joogaan oo ay fursad u heleen inay dhiirigelin iyo gacanba inay nagu siiyeen. sababtu waxa weeye haddii aad timaado waddan aan waddankaaga ahayn inaad maal geliso, inaad ku nagaato, hantidaada inaad geliso, waxay u baahan tahay cid ku garab istaagta oo kugu dhiirigelisa oo ku tiraahdo waddada aad ku socota wadda sax ah. aad bay ugu mahadsan yihiin. maantana qaar ka mid way nala joogaan, qaar ka midna way maqli doonaan insha Allah tacaala. runtii waxaan ugu dhiirigeliyay dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsato leh oo nooc walba leh oo jaaliyad leh oo markii halkan Guuleed aan xafiiska ka furnay noo yimid, guriga naga iibsaday, qaarkood aysan naga iibsan laakiin la dhiirigeliyeen, ay noo sheegeen waddadan ku socnaa inay waddo macquul tahay. aad iyo aad baan maartay ugu mahad celinayaa. waxaan leeyahay waa mahadsantihiin, amaalkaasna waa inii haynaa. si gooniya ama si qaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo shirkadaha aan bahwadaagtanahay oo uu ka mid yahay haddii alla ku horeeyo Unfaar Inshaa'aad oo ah nin shirkad Soomaaliyeed, yani dad badan oo Soomaaliyeed guriga ka gaday, welina dadkii u qidmeeya. waxaa ka mid ah Mustafa iyo Duwaan oo ayaguna shirkad kale weyn oo John Guuleyraale. waxaa ka mid ah Ferdi Akbash. يعني runtii shirkadaha Soomaaliyeed Turkida oo walaalahana annagu hadda Soomaaliyeeba noo noqdeenba aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa. saacad walba waana garab taagan yihiin, annaguna waa garab taaganahay, ayaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. intii kulan ka soo qayb gashay intaan ka soo qayb galinba aad baa u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.